إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله، بعثه الله تعالى رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود هذا ولا إن شاء الله وحين إن شاء الله كلمة ير أو كوبان إسكا حسوسين دونا وحويان سدا إنه كركو حسني توبت كينكا وحويان بنتا الشيخة وحوي والزاهد السمانه أيا وحويا إن شاء الله ينوغا ورمي دونا ولا ليال شيخ لو يقانو منصور ابن عمار أبو اليسرى أيا وحويا لغوكيا، وكان حيا وحويا وحوها من نول caamkii waxa weeyaan hijriga ahaa ee saddexaad ama qarnigii saddexaad ee hijriyada ayuu waxa weeye ka mid ahaa culimadii waxa weeye noolay. runtii wuxuu ahaa sida imaamu dahabi uu waxa weeyaan munaaqabkiisa kaga warramayo nin caalima buu ahaa oo waxa weeyaan weliba zaahida alcaabid alwaacid qaliiq alwacd waxa weeyaan weliba wuxuu ahaa nin ummadda wuxuu sheega oo dadka waaniya oo khayrka u soo gudbiya ayuu ahaa. ninka caalimka ah ee mansuur ibn cammaar oo lagu kuyeyn jiray abulyusra alkhuraasaani, runtii wuxuu ahaa nin aad iyo aad waxa weeye u khayr badan oo in badan ahlulcilmigu waxa weeye ay ka warramaan. markaa sheikha ayaa waxa weeyaan qiso la kulantay ayuu isagu insha Allah inoo soo gudbinayaa oo inooga warramaya. qisadaasi waxay ku saabsan tahay su'ul khaatima, qofka oo waxa weeyaan khaatimo xumo ku dhinta. haddaynu si kale u eegno waxay ku saabsan tahay at-tawbatu al-kaadiba, toobadkeenka beenta ah ee qofku aan waxa weeye si dhaba u toobadkeen. si kale haddaynu u eegno waxay qisadani ay ka warramaysaa alriyaa'u wasumca, qofku waxa weeyaan inuu ummadda istuso oo waxa weeyaan ha lagu arko uu acmaasha uu qabanayo uu u sameeyo. mixwaradaa ayay waxa weeye qisadu dhadhankeedu uu ka kooban yahay. markaa walaalayaal sheikhu waxa uu leeyahay kaana lii sadiiqan musrifan calaa nafsi, waxaan saaxiib la ahaa nin waxa weeyaan naftiisa ku gaboodfalay ayaanu isnaqaanay oo saaxiib ahaan jirray buu yidhi. humma taaba, dabeetana wuu toobad keenay ninkii. markii hore nin xun buu ahaa oo waxa weeye macaasida iyo xumaanta waxa weeyaan u aabba yeelin oo ay korkiisa ka muuqato. mid naftiisa ku gaboodfalay oo xumaan kasta sameeyey ayuu runtii ahaa buu shiikhu leeyahay. humma taaba, dabeetana waxa weeyaan waa toobad keenay buu shiikhu yidhi. wa kuntu araahu, waxaan arki jiray buu shiikhu leeyahay kathiira alcibaadati, mid cibaado badan, isagoo cibaado fara badan samaynaya ayaan waxa weeyaan indhahaygu in badan ay ku dhici jireen. watahajudi, weliba habeenkiina isagoo kacaya oo salaatuleyl u kacaya ayaa indhahaygu qaban jireen. fafaqadtuhu ayaaman, dabeetana maalmaan waayey ninkii, maalmo ayaanan arag oo aragtidiisii aan waayey. runtii meelaha uu ka waayayaana waa goobihii cibaadada ee waxa weeye uu ka cibaadaysan jiray, waana meelaha dadka wan wanaagsan laga tabo
waxa weeyaan lagu yaqaano waxa weeyaan markay la waayo la dareemo waxa weeyaan inuu maqan yahay. faqiila lii huwa mariid, waxaa lay sheegay buu shiikhu yidhi inuu ninkii xanuunsanayo oo uu buko oo waxa weeyaan uu jiifo ayaa layga warramay. fa aataytu ilaa daarih, dabeetana gurigiisii baan qabtay si aan u soo booqdo oo ninkaa waxa weeyaan toobad keenay ee wanaagsanaaday ee cibaadada faraha badan samaynayey ayaan waxa weeyaan ku tala galay inaan soo eego maadaamuu xanuunsaday, inaan soo eego ayaan waxa weeye ku tala galay. fa aataytu ilaa daarihi, dabeetana gurigiisii baan imi buu shiikhu leeyahay. fa kharajat ilaya ibnatuh, waxa igu soo baxday inantiisii uu isagu dhalay, ninkaa naftiisa markii hore ku gaboodfalay laakiin markii dambe khayrka badan aan ka arkayey gurigii inantiisa ayaa iga furtay buu shiikhu leeyahay. fa qaalat waxay igu tidhi man turiidu, waar yaa doonaysaa? qultu fulaan, hebel baan doonayaa baan ku idhi, aabbaheed baan magaciisii u sheegay. fasta'danat lii, dabeetana way ii idan weydiisay inaan soo galo ayay ii idan weydiisay. guryaha waxa weeye layskama galee waa la idan weydiistaa sida ilaahay subxaanahu wa tacaala uu in badan ina amrayo, laakiin waxa weeyaan dadka soomaalida ay in badan ay la yaabaan waxa weeyaan haddii lahaado guriga idan weydiiso. markaa waan idan weydiistay buu shiikhu leeyahay, waanuu ii idmay inaan soo galo. fa dakhaltu, dabeetana gurigii baan soo galay buu shiikhu yidhi. fa wajadtuhu, waxaan helay ninkii fii wasdi daarihi, isagoo guriga bartankiisa waxa weeyaan ku sugan, wa huwa mudajic, isagoo weliba waxa weeyaan jiifa calaa firaashihi, gogashiisa ku jiifa. waqad iswadda wajhuh, wejigiisii baa madoobaaday oo isbeddelay, xanuunkii iyo diiftiisa ayaa waxa weeye ka muuqanaysa. xanuunkii ku dhacay ee uu la jiifsaday diiftiisii ayaa waxa weeye ka muuqanaysa. wa adrafat caynaah, waxa weeyaan indhihiisii baa ilini ka socotaa oo wuu ilmaynayaa, waa ninkii xanuunsanayey. waqalladat shafataah, dibnihiina way qallaleen. dibnahani waxa weeyaan dheecaan rabbaaniya ayay ku shaqeeyaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ugu tala galay. dabeetana dibnihii baa qallalay. qofkuna markuu xanuunsado ee in badan u rafaado waxa weeyaan wuu dareemayaa dibna qallalka ama uu haraado. faqultu lahu, waxaan ku idhi wa ana khaa'if minhu, anoo weliba aad u cabsanaya markaan xaaladiisa arkay, anoo aad u warwarsan baan waxaan ku idhi buu shiikhu yidhi, yaa ukhaya walaalkayow, akthir min qowli laa ilaaha ila allah, waxaad badisaa kelmadda laa ilaaha ila allah. alle xaq lagu caabudaa ma jiro alle mooyaane, alle weyne mooyaane alle kaleo xaq lagu caabudaa ma jiro. fa fataxa caynay, dabeetana labadiisii indhood buu furay ninkii xanuunsanayey. fa nadara ilaya, wuu isoo eegay oo kor buu ii eegay buu leeyahay. wa gushiya calayhi, dabeetana waxa weeye waa la miyir daboolo, wuu miyir doorsoomay. fa qultu lahu haaniyan, mar labaad baan waxaan ku idhi yaa ukhaya walaalkayow, akthir min qowli laa ilaaha ila allah, hadalka laa ilaaha ila allah badi. haddana mar saddexaad baan ku celiyey qowlka laa ilaaha ila allah badi. fa fataxa caynay, waxa weeyaan labadiisii indhood buu furay. wa qaala wuxuu igu yidhi intuu ila hadlay, yaa ukhaya mansuur, walaalkay mansuurow, haadihi kelima, kelimaddan qad xiila baynii wa baynahaa, aniga iyo iyada waa nala kala dhex galay. maanta kuma dhawaaqi karo kelmadda laa ilaaha ila allah, maanta waa nala kala dhex galay, kuma dhawaaqi karo oo carabkayga kama edhan karo. subxaanaka yaa ilaahi. waxa weeyaan kelimaddani walaalayaal waa kelmad culus weeyaan, u baahan in adduunka waxa weeye midhaheeda laga sii beero. dabeetana wa qaala wuxuu yidhi, yaa ukhaya mansuur, walaalkay mansuurow, haadihi alkelima, kelimaddan laa ilaaha ila allah, qad xiila baynii wa baynahaa, iyadiyo aniga waa nala kala dhex galay, kuma dhawaaqi karo oo carabkayga kama edhan karo. faqultu waxaan ku idhi
laa xawla walaa quwata ilaa billaahi alcaliyi alcadiim. alle waxa weeyaan xeeladi ma jirto, awoodina ma jirto ilaa allaha sarreeyatiisa mooyaane ee weliba weyn. ثuma qultu lahu waxaan kuuhi yaa ukhaya walaalkayow ayna tilka asalaati waasiyaami waaltahajudi waalqiyaam. war walaalle salaaddii faraha badnayd aad tukan jirtay, soomkii faraha badnaa ayaan kugu arki jiray, habeenkii salaatuleysh aad u kici jirtay ee waxa weeyaan habeenkii oo dhan aad taagnaan jirtay, meeye xaggay ka baxeen? maxay maanta wax kuugu qaban waayeen oo aad ugu badbaadi weyday buu ku yidhi. faqaala waxa uu igu jawaabay kaana daalika ligayri illaah, arrintaa waxaan u samaynayaa alle subxaanahu wa tacaala cidaan ahayn baan u samaynayey, cidaan alle ahayn ayaan waxa weeyaan u samaynayey. wa kaanat tawbatii kaadiba, toobadkeenkaan toobad keenayna been bay ahayd. in allaha yaclamu khaa'inata alacyun wamaa tukfi asuduur. ilaahay subxaanahu wa tacaala walaalayaal waxa uu og yahay waxa weeyaan laabaheenna ku jira ee laabaheenna ku sugan iyo waxyaabaha ay u khiyaamayaan. ilaahay subxaanahu wa tacaala intaba alla waa la socdaa. markaa ninkani waxa uu leeyahay wa kaanat tawbatii kaadiba, toobadkeenkaan toobad keenay been bay ahayd. cibaadaadka aan samaynayeyna ilaahay subxaanahu wa tacaala kayrkii bay ahayd. innamaa kuntu afcal, waxaan u samaynayey arrimaha lidaalika liyuqaala cannii, waxa weeyaan in la yidhaahdo ninkaasi waa nin wanaagsan oo dadku ay ugu ammaanaan. wa kuntu afcalu daalika riyaa'an linnaas, dadka ayaan waxa weeye isku tusin jiray inaan waxa weeyaan acmaasha aan samaynayo qabanayo. fa idaa khalowtu ilaa nafsii, haddaba naftayda markaan la banbaxo oo aniyo naftaydu aan isku soo hadhno, aklaqtu albaaba, albaabkaan soo xidhan jiray. wa arkhaytu sutuura, waxa weeyaan daaha aniyo alle noo dhexeeyana waan goyn jiray oo xishoodka ah oo alle subxaanahu wa tacaala inaad ka cabsato oo ka baqda ah oo ilaahay muraaqabadiisa aad iska ilaalisa ah, taana waxa weeyaan daaheeda waan goyn jiray buu yidhi. wa sharibtu alkhumuur, khamrigaan cabbi jiray. wa baarastu rabbii bilmacaasi, xumaan oo dhanna waxa weeyaan waan samayn jiray, xumaan oo dhanna waan samayn jiray. wa dumtu calaa daalika, sidaas ayaan waxa weeyaan ku sugnaa oo waxa weeyaan aan joogtayn jiray. muddatun, waxa weeyaan muddo ayaan sidaa ku waday. fa asaabanii almaradu, xanuunkan baa igu dhacay. wa ashrafat alhilaaku, waxa weeyaan sidaasaan ku halaagsamayaa oo maanta aan ku dhimanayaa. walaalayaal qisadani waa qiso yaroo kooban, laakiin runtii waa qiso waxa weeyaan aada u mug ballaadhan. qofkii waxa weeyaan wax fahmi kara waa qiso waxa weeyaan cibro u ah. waa qiso waxa weeyaan meelo fara badan taabanaysa, waxyaabo fara badan ka warramaysa, runtii waaqaceennana ay aada waxa weeye u fara badan yihiin. ninkani walaalayaal sida aynu aragno markii hore wuxuu ahaa nin musrif ah oo naftiisa ku gaboodfalay oo xumaan oo dhan sameeyey. laakiin sida korkiisa laga arkayey, ummaddu waxay u arkayeen inuu toobad keenay oo xaalkiisa hore uu beddelay, inuu la imanayey waxa weeyaan siyaam fara badan, inuu la imanayey salaad fara badan, inuu la imanayey qiyaam waxa weeye fara badan iyo salaatuleyl. walaakiin maxaa yeelay waxa weeyaan alle kayrkii ayuu u samaynayey. riyaa iyo sumco iyo waxa weeyaan dadku ha ku arko ayuu waxyaabahan u qabanayey, sida uu isaguba ka warramay intaanu nolosha ka faaruqin. sheekhu raximahullahu wuxuu leeyahay markuu dhowr jeer ilaa 3 jeer kelmaddii laa ilaaha ila allah uu ku celceliyey, ayuu markii dambe uga warramay inaanu kelmadda ku qowli karin oo aanu edhan karin, carabkiisa ay maanta ku culus tahay oo waxa weeyaan aanu ku dhawaaqi karaynin. dabeetana sheekhu
albaabka ayaan ka baxay buu yidhi intaanan dabadda gaadhin ayaa lay sheegay inuu dhintay oo nafti kaga baxday calaa daalika alxaal isagoo arrintaa ku sugan waxa weeyaan sidaasa oo kelimaddii laa ilaaha ila allahu waxa weeye kari waayey. markaa walaalayaal qisadan fawaa'id fara badan ayaa waxa weeyaan ku jira. fawaa'idka walaalayaal ku jira waxaa ka mid ah ee ay inoo faa'iidaynayso altawbatu asaadiqa in lala yimaado qofku markuu toobad keenayo toobad dhaba alle subxaanahu wa tacaala inuu la yimaado. qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmati illah ina allaha yakfiru adunuuba jamiica inahu huwa algafuuru alraxiim. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay qul waxaad ku tahay nebi maxamedow yaa cibaadii addoommadaydiyow aladiina asrafuu calaa anfusihim kuwii nafooda laa taqnatuu min raxmati illaah war ka quusanina alle subxaanahu wa tacaala naxariistiisa ha ka quusanina. ina allaha yakfiru adunuuba jamiica ilaahay subxaanahu wa tacaala dembiyaalkao dhan buu dhaafaa. innahu huwa algafuuru alraxiim waa alle waxa weeyaan toobad aqbal badan oo waxa weeyaan gafuura oo dembiyadoo dhan waxa weeye dhaafa. waa alle subxaanahu wa tacaala naxariis badan oo u naxariista kuwa waxa weeyaan isaga u soo laabta. markaa walaalayaal towbadu shuruud ayay waxa weeyaan leedahay ay ku ansaxdo oo laga rabo qofka muslimka ah markuu toobad keeniyo inuu la yimaado. towbadaa walaalayaal waxaa ka mid ah sida ilaahay subxaanahu wa tacaala in badan ka warramay towbatu nasuuxa inay tahay towbad waxa weeyaan dhaba. towbadda nasuuxada ah waxaa la yidhaahdaa waa towbad qofku aanu waxa weeyaan dembigii ku noqonaynin. towbad nasuuxa inay tahay oo saadiqa ah oo runa oo waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ugu noqonayo. waxaa loo baahan yahay markuu qofku toobad keenayo inuu la yimaado alcasmu waxa weeyaan inuu goosto inaanu dib ugu laaban doonin dembigii waxa weeyaan uu galay. dembiyadii uu sameeyey inaanu dib ugu laaban doonin inuu ka toobad keeno. waxyaabaha walaalayaal ku jira ee qisadan fawaa'idkeeda ka mid a waxaa ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala acmaasha walaalayaal laba shardi ayaa waxa weeyaan lagu aqbalaa. labadaa shardi mid ka mid ah haddii la waayo waxa weeyaan camalkaasi maqbuul noqon maayo bal kaana marduuda wuxuu noqonayaa mid lagugu soo celiyo oo aan waxba ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa kaaga goynaynin. labadaa shardi waxa weeyaan an yakuuna mukhlisan lilaah an yakuuna khaalisan lilaah inuu yahay mid ilaahay subxaanahu wa tacaala aada u badhax tirayso oo ilaahay aadan cidna la wadaajinaynin. ilaahay subxaanahu wa tacaala aadan cidna la wadaajinaynin. riyaaga ayaa ka mid ah oo waxa weeyaan soo gelaya waa shirkul asqar bay culimmadu ku tiriyaan. inaad waxa weeye dadka ismaqashiiso oo istusto oo acmaashan aad samaynayso waxa weeyaan ummaddu ha ku aragto oo ha lagu ammaano aada u samayso. nebiguna calayhi salaatu wasalaam ilaahay buu ka magan geli jiray inuu ilaahay arrintaa ku ibtileeyo ilaahay waa ka magan geli jiray. innaguna walaalayaal waxaa laynooga baahan yahay acmaasheenna inaynu ka dhigno khaalisan lilaah mid ilaahay subxaanahu wa tacaala u badhax tiran. shardiga labaad ee camalka lagu aqbalo waxaa ka mid ah an yakuuna sawaaban inuu yahay mid sawaaba sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam waafaqsan oo nebi maxamed jideeyey. man camila camalan laysa calayhi amrunaa fa huwa raddun qofka sameeya waxaan nebigu calayhi salaatu wasalaam jidaynin oo aanu jidaynin oo sunnadii nebiga aan ka mid ahayn waa lagu celinayaa. markaa labadaa shardi walaalayaal inaynu ilaalino oo ka warqabno ayaa loo baahan yahay. waa waxyaabaha qofka camalkiisa waxa weeyaan lagu aqbalo ayay ka mid tahay labadaa shardi u wen yihiin. waxyaabaha walaalayaal aynu ka faa'iidaysanayno qisadan waxaa ka mid ah waxa weeyaan qofka saalixa ah
ee wanaagsan in waxa weeyaan lala saaxiibaa waxay kugu kaalmaynaysaa xaqa inaad waxa weeye ku sugnaato ninkan sheekha ah ee mansuur ibnu cammaar ninkani markuu xanuunsaday buu soo booqday markaasaa waxa weeyaan wuxuu u laqimayaa kelimatu laa ilaaha ila allah laakiin maxaa meeshii ka dhacday waxa uu leeyahay qad xiila baynii wa bayna haadihi alkelima waa laynala soo kala dhex galay aniga iyo kelmaddan oo maanta kuma qawli karo walaalayaal waxaynu u baahan nahay nafteenna inaynu ku tarbiyadayno waxa weeyaan wanaagga ilaahay subxaanahu wa tacaala acmaasha aynu samaynaynana dartii walaalayaal inaynu u qabanno taasi innaga ayay waxa weeyaan wax inoo qabanaysaa haddii kale waxa weeyaan hadhow waxaa kugu dhacaya suu'ul khaatima sida ninkaa ku dhacday suu'ul khaatima waxa weeyaan waa wax ilaahay subxaanahu wa tacaala laga magan galo noloshii aad adduunka ku noolayd oo dhan inaad waxa weeyaan suu'ul khaatima ku soo gebagabayso aakhiro noloshaad qaabilaysay eena cusbaydaad u guuraysay inaad suu'ul khaatima waxa weeyaan la tagto oo waxa weeye aada la godgasho markaa walaalayaal qisadani runtii waa qiso waxa weeyaan guda ballaadhan oo fawaa'id fara badani waxa weeyaan ay ku duugan yihiin walaalayaal waxaynu u baahannahay towbadeennana inaynu ka dhigno mid waxa weeyaan saadiqa ah qofku markuu toobad keenayo acmaasha uu samaynayana khaalisatan lilaah mid ilaahay subxaanahu wa tacaala dartii aynu ka dhigo acmaashiisa inuu ka dhigo sawaaban mid waxa weeyaan sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam waafaqsan oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu jideeyey waxaanu nebi maxamed kuu jidaynin waxa weeyaan kuma cibaadaysan kartid oo ma samayn kartid bal haddii aad samayso sida maanta dad badani ay ku lunsan yihiin waa lagugu soo celin doonaa waxyaabaha maanta bidaca faraha badan khuraafaadka khusacbalaadka waxyaabaha waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala la doonayo dad badan ay leeyihiin ilaahay baanu ugu dhowaanaynaa war ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwaasi kuu dhowayn maayaane ilaahay subxaanahu wa tacaala dariiqa xaqa ah ee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu jideeyey waa inaad ilaahay ugu dhowaato qul in kuntum tuxibuuna allaha faatabicuunii yuxbibkum allah nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa leh haddaa ilaahay subxaanahu wa tacaala jeceshihiin isoo raaca aniga ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa idin jeclaanaye markaa walaalayaal labadaas shardi waa muhim camalkaaga in laga helo camalkaaga waa inaad shaandhayn isku shaandhayn waa inaad waxa weeyaan ku samayso waa inaad waxa weeye ka murugooto wixii kaa dhacay ee waxa weeyaan xumaana si waxa weeyaan maalintan oo kale aanay kuu haleelin oo khaatuma xumo aadan ugu dhimanin runtii waa wax aada loogu murugoodo waa nolol dheer oo waxa weeyaan aan dhammaad lahayn qofka waxa weeyaan khaatuma xumo ku dhinta waa naar xanuun badan sida ilaahay subxaanahu wa tacaala oo in badan ka warramay halkaas ayaa waxa weeyaan hoy looga dhigayaa oo waxa weeyaan la dhadhansiinayaa cadaabyada waxa weeye noocyadooda kala duwan cadaab qura lagu cadaabi maayo waxa weeyaan noocyo kala duwan oo cadaabku uu leeyahay ayaa alle subxaanahu wa tacaala uu ku cadaabaya dadka ahlu naarka ee khaatuma xumada ku soo dhintay maalintaa walaalayaal acmaashaadii dib uma islaaxin kartid bal ninkaa waxa weeyaan walaalayaal waxaa ka qiyaas qaadataan weliba innaga waxa weeyaan dee xaalkeenna ilaahay baa og salaad badan inaynaan lahayn baa laga yaabaa inaynaan qiyaamuleylba lahayn baa laga yaabaa soomka waxa weeyaan inugu yar yahay baa laga yaabaa walaakiin ha yeeshee ninkani wuxuu ahaa nin habeenkii oo dhan taagan maalintii sooman salaad badan la imanaya habeenkii oo dhanna qiyaamuleyl u taagan walaakiin maxaa yeelay khaatumo xumo iyo riyaa iyo sumca uu arrintan u samaynayey ayaa waxa weeyaan kala dhex gashay markaasaa wuxuu ku dhawaaqi kari waayey kelimatu laa ilaaha ila allah walaalayaal kelmaddani waxay u baahantahay beerteeda in adduunka laga sii beero
runtii waa kelimad waxa weeyaan aada u culus laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala ciddiisii dhaba waxa weeyaan ugu caabudda waa kelimadda ilaahay subxaanahu wa tacaala iyada darteed uu u taagay samooyinkan iyo waxa weeyaan dhulkan waa kelimadda alle subxaanahu wa tacaala darteed uu u samaystay janno iyo waxa weeyaan naar waa kelimad walaalayaal culus laakiin waxa weeyaan innaga agteenna laga yaabo maanta inay ku fudayd badan tahay maalinkaa wuxuunbaa ku dhawaaqi kara ninkii maanta hadda jawaabteeda sii diyaarsada walaalayaal hadda ayaynu fursad haysannaa daqiiqadaha soo socda ma garan karro waxa dhacaya ma garan karro sidaynu noqonayno markaa walaalayaal wey inaynu jaaniskeenna ka faa'iidaysanno oo nafteenna waxa weeyaan aynu ilaahay subxaanahu wa tacaala acmaashaynu u samaynayno khaalisatan lilah ay inoo noqdaan inay kuwa sawaaba noqdaan oo dariiqii nebiga calayhi salaatu wasalaam ku sugan intaa yar baan walaalayaal jeclaystay insha allahu inaan idinla wadaago assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu